السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan mowduuca Amiira iyo Aadan aan ka hadlo oo haysta wiigii hore TikTok-ga. maxaa la dhahaa Amiira iyo Aadan waxay ahaayeen lamaano hore isku qabay oo maasha Allah annaga aan daawan jirnay. Haddeerta Amiira nin cadaan ay guursatay, Ilaahay isku barakeeyo. marka kadib Amiira waxay banaanka keentay waxyaalihii ay ku kala tageen, yacni khilaafaadkii iyo mashaakilka ay ku kala tageen. Amiira waxay sheegtay inay Aadan maxaa la dhahaa ay ku farxad siin jirin, maxaa la dhahaa ninnimana ay ku haysanin, ay farxad dareemi jirin markasta ay xanaaqsanaan jirtay sida Amiira sheegtay waaye. arrintaas laba wax yar inaan ka dhaho. Horta maxaa la dhahayay labada qof oo isqabta waxaa loogu baahan yahay inay nolol iyo farxad iyo jacayl ay isa siiyaan. nolosha bes ma ahan inaa gogasha bes laga fikira ma ahan. gogasha waxaa ka weyn labada qof inay laba qof oo isku dhow oo maxaa la dhahayay naftooda yacni kalgacayl iyo jacayl fara badan isa siinaya inay yihiin. hadda saa u jeedna Amiira waxay guursatay nin cadaan. ninkaas cadaanka da ahaan Amiira iyo Aadan buu ka weyn yahay, laakiin Amiira noo sheegtay annagana aan u jeedno inay ku haysato nolol iyo farxad ay ku haysato. dumarka maxaa la dhahayay ma fiirinayaan waxyaalaha, yacni maxaa la dhahayay dumarka waxay u baahan yihiin markay dumar yihiin ragga iyo dumarka subxaan allah ilaahay maxaa la dhahaa isku mid kama dhigin. dumarka jacayl fara badan ay u baahan yihiin. jacaylka faraha badan hadday waayaan dumarka waxaa ku dhacaya xanuun depression, yacni xanuun maskaxda ahaa ku dhacayo. way isku buuqaysaa, deganaansho ma dareemayso, farxad ma dareemayso. waxaa laga yaabaa maxaa la dhahayay qaarkood inay isdhahaan reerkaad u sabar, laakiin dhibaato fara badan inay ku dhacdo. qaarkoodna maxaa la dhahayay isla markii hadday u dulqaadan waayaan inay maxaa la dhahayay ay furiin ay dalbadaan. maxaa la dhahayay ninka ragga ah waxaa loogu baahan yahay inuu naagtiisa jacayl siiyo. aayadan quraanka ah ayaan guda gelaynaa. acuudu billahi min ashaytaan rajiim. ilaahay quraankiisa wax kasta noogu sheegay, laakiin ragga Soomaalida kuma dhaqmaan. war quraanka ilaahay ku dhaqma. wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacalnaa baynakum mawaddatan waraxma. waxaa idinka abuurnay dumar, yacni azwaajan litaskunuu ilayha. dumarka waxaa laga abuuray feerta ragga, yacni dumar iyo aada dhex degtaan reer degan, deganaasho iyo farxad iyo naxariis iyo jacayl. bal qur-aanka ilaahay inaad ku dhaqantaan keliya waxaa ka qaadateen 4 naag in la guursado. intaas bisaa dhahdeen ilaaha qur-aankiisa ku sheegay. laakiin naxariista iyo jacaylka iyo deganaashaha assakiina, yacni litaskunuu ilayha waa sakiina, waa deganaasho. intaas dhan maxaad ugu tagteen oo waxaan ku dhahay dumarka Soomaalida dhan depressionka ku wada riday ee la wada xanaaqsan yihiin, ee la wada ooynayaan, oo waxaan ku dhahay u dayacan yihiin. war ilaahay ka baqa. dumarka culimada almafruud culimada laga rabaa maxaa la dhahayay inay quraanka ay idin fahansiiyaan tafsiirkiisa iyo dhaqanka diinta islaamka sida dumarka loola dhaqmo iyo naxariista. taas mas-uuliyadda culimada waaye. laakiin waxyaalaha qaarkood ragga Soomaalida ay ku dhaqmayaan wax loo dulqaadan kara ma ahan. maanta Amiira ninkaas waxay u dooratay oo waxaan ku dhahay oo 60 jirka ah waxaa waay deganaasho iyo farxad inay ka heshay. yacni subxaan allah. war laabta isgeliya, isjeclaada, jacayl isa siiya, farxad isa siiya, isbedela. adduun horumarsanaad joogtiin, sidaa wax ka bedela. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.